markii ay ilaaladu soo gaareen qolka meydadka si ay Yashoda u qabtaan si ay uga badbaado waxay ku dhuumatay qol kale. halkaas naxdin ayay la kulantay. waxay aragtay ilmihii Leela oo dhalo ku jira. argagax darteed ayay qaylisay, codkeediina wuxuu soo jeediyey ninkii ilaalada ahaa. ninkii ayaa soo qabtay wuxuuna u jiiday qol kale si uu u dilo. dagaal adag oo gacan ka hadal ah ayaa dhex maray labadooda iyadoo Yashoda ay nafteeda difaacaysay. ugu dambayntii Yashoda way ku guulaysatay inay iska celiso, ninkii ilaalada ahaana halkaas ayay ku dishay. kadib waxay adeegsatay kamarada kormeerta si ay u ogaato lambarka sirta ah ee qolka Madhu. markii ay Madhu qolka ka baxdayna Yashoda fursad ayay heshay. Yashoda waxay xiratay dharkii iyo qalabkii ninka ilaalada ahaa si aan loo aqoonsan, waxayna gashay qolka Madhu iyadoo bilowday inay baaritaan samayso. si lama filaan ah Madhu ayaa soo laabatay oo qolka soo gashay. inta aysan waxba samayn Yashoda ayaa ka hormartay oo mindi qoorta ka saartay iyadoo Madhu la haysta ka dhigatay. Yashoda oo haysata Madhu ayaa si caro leh u weydiisay muxuu yahay dhibaatada aad gabdhahan uurka leh u geysanaysaan. Madhu oo isku dayday inay jawaabto ayaa waxaa si degdeg ah u soo galay Dar Gowtam. Dar Gowtam ayaa Yashoda ku yiri hadal ha weydiin naagtan ee dil. waa shaydaan aadanaha u eg. sida ay adiga ku qiyaantay ayay anigana ii qiyaantay oo halkan aan ugu xiranahay. Yashoda oo aamintay hadalka Dar Gowtam ayaa mindidii ka qaaday qoorta Madhu si ay u dhagaysato xaqiiqada. balse isla daqiiqadaas Dar Gowtam ayaa khiyaano sameeyey. wuxuu si kadis ah Yashoda uga dafay mindidii wuxuuna qabtay qoorteeda isagoo qosol dheer ku qoslaya. wuxuuna ku yiri ma dhab ayay ka ahayd inaad i rumaysato. aan ku xasuusiyo inaad muuqaalka like saarto ciwaankana follow dhahdo. Dar Gowtam ayaa Yashoda ku xiray kursi iyadoo dhaawac yar uu ka gaaray qoorta. Madhu ayaa markaas tiri gabadhay maxaad naftaada iyo ilmahaagaba u gelinaysaa diiqad iyo dhib intaas leeg. intaas kadib Madhu ayaa bilowday inay Yashoda uga sheekayso taariikhdoodii hore. waxay tiri sanado badan ka hor aniga iyo Gowtam waxaan wada dhigan jirnay iskuul, waxaan ahaa gabar qurux badan oo caan ah. maalin ayaa madaxda sare yimaadeen xaflad xulashada quruxda oo iskuulka ka dhacaysay. halkaas ayayna ka bilaabatay cadaawadda iyo tartanka keenay inaan halkan ku dambayno.